taariikhda ummadaha waxaa jira shakhsiyaad dhalashadooda ay la mid tahay dhulgariir beddela muuqaalka dhulka, rag aysan taariikhdu iska indhatiri karin oo magacoodu ku xardhan yahay boogga wakhtiga. Qisadeenna maanta waa sheeko ka mid ah raggaas, nin cadowgiisa ay ka cabsadeen oo ay saaxiibbadiis ku faaneen, shayddaankan uu ka leexday waddadiisa. Tani ma ahan oo keliya sheekada khaliifkii labaad ee islaamka, waa sheekada isbeddelkii ugu weynaa ee shakhsi ku dhaca, safar ka soo bilaabmay cadowgii ugu darnaa ee islaamka ilaa uu ka noqday gaashaankii iyo seeftii ugu adkeyd ee islaamka. Waa qisadii Cumar ibnu Khadaab, Allaha ka raali noqdee, ninkii lagu naanaysay Alfaaruuq. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Cumar ibnu Khadaab, Allaha ka raali noqdee. Safarkan waxaan si qoto dheer ugu eegi doonaa noloshiisii oo dhan, laga soo bilaabo awooddiisii jaahiliyada ilaa islaamitaankiisii mucjisada ahayd ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku ducaystay, doorkiisii Madiina iyo khilaafadiisii dahabiga ahayd ee lagu dhisay aasaaska cadaaladda, maamul wanaagga iyo furashooyinka waaweyn. Cumar waxa uu ka dhashay qoys ka mid ah kuwa dhexdhexaadka ah ee reer Quraysh, laakiin shakhsiyaddiisa ma ahayn mid dhexdhexaad ah. Waxa uu ahaa nin laga cabsado, adag oo aan cidna u jixin, wuxuuna caan ku ahaa legdanka, fardafuulka iyo gabayga. Barbaarintiisii adkayd ee aabbihiis waxay ku beertay dabeecad qallafsan oo go'aan leh. Waxa uu ka mid ahaa madaxda Quraysh, wuxuuna safiir u ahaa xilliyada dagaalka. Markii iftiinkii islaamku uu ka soo ifbaxay Maka, Cumar waxa uu noqday mid ka mid ah cadowgii ugu darnaa ee islaamka. Dabeecaddiisa adag iyo jaceylka uu u qabay dhaqankii awoowayaashiis ayaa ka dhigtay inuu u arko diintan cusub mid halis ku ah midnimada iyo sharafta Quraysh. Waxa uu si arxandaraa u cadaadin jiray muslimiintii tabarta yaraa, mana uusan u aabiyeeli jirin dumar iyo carruurtoona. Ujeeddadiisa waxay ahayd inuu cabsi geliyo qof kasta oo ku fakera inuu Maxamed raaco. Haybaddiisa iyo awooddiisa waxay cabsi weyn ku haysay muslimiintii Maka, xitaa waxay ku dhiiran waayeen inay si fagaara ugu cibaadaystaan Kacbada agteeda. Wuxuuna ahaa derbigii ugu weynaa ee hortaagnaa faafitaankii islaamka ee Maka. Laakiin halka ay dadka u arkayeen cadow naxariis daran, nebiga naxariistiisa waxa uu u arkayey awood iyo karti haddii xaqa loo leexiyo wax weyn tari kara. Habeennada ka mid ah, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu rabbigiis ka baryey ducadii taariikhda beddeshay. Ducadaasi waxay ahayd bilowgii isbeddelka. Cumar inkastoo uu ahaa nin adag, haddana waxa uu ahaa nin aqli badan oo xaqiiqda raadin jiray. Waxa qalbigiisa uu bilaabay inuu galo shaki iyo isweydiin, wuxuuna arkayey adkaysiga muslimiinta, wuxuuna la yaabay awoodda ay ku haysa diintan. Maalin ayaa caradiisa waxay gaartay heerkii ugu sarraysay, wuxuuna maqlay in islaamku uu sii fidayo. Isagoo seeftiisii garab ku sita ayuu si cara looga soo baxay gurigiisa, isagoo ku socda hal ujeeddo. Ujeeddadaasina waxay ahayd inuu dilo Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Jidka waxa uu kula kulmay nin la yidhaahdo Nucaym ibnu Cabdullaahi oo si qarsoodiya u islaamay. Markii uu arkay carada Cumar, waxa uu weydiiyey halka uu u socdo. Cumarna waxa uu si bareera ugu sheegay ujeeddadiisa. Nucaym isagoo raba inuu badbaadiyo nebiga, waxa uu ku yidhi, maad reerkaaga ka bilowdid. Walaasha Faadumo iyo saygeedii Siciidna way islaameen. Cumar wuu naxay, wuxuuna u carooday si uusan weligiis hore ugu caroon, wuxuuna u leexday dhankii guriga walaashiis. Markii albaabka uu u dhowaadayna, waxa uu maqlay codka Qabaab oo akhrinayay aayad ka mid ah suuratu Daaha. Markii uu si xoog leh albaabka u garaacayna, way argagaxeen. Waxa uu guriga soo galay isagoo cadhaysan, wuxuuna si xun u garaacay sayga walaashiis. Walaashii markay aragtay inuusan naxariisanayn, Faadima waxay muujisay geesinimo aan la filayn, waxayna ku qaylisay, haa, waan islaamay, waxaana rumeeyey Alle iyo rasuulkiisa, ee samee waxaad doonto. Markii uu arkay dhiigga ka qubanaya walaashiis iyo adkaysigeeda, Cumar qalbigiisa wuu jilcay, qoommo ayaana gashay.
wuxuuna yidhi, isiiya kitaabkaad akhrinaysaan. Walaashii waxay ku tidhi, ma taaban kartid adigoo nijaas ah ee marka hore soo daahiri. Markii Cumar uu soo daahir noqday, waxaa loo dhiibay buugaggii, wuxuuna bilaabay inuu akhriyo aayadihii ugu horreeyey ee suuratu Daaha. Markii uu gaaray Cumar aayadda dhahaysa, aniga ayaa ah Alle, ilaah kale ma jiro aniga mooyaane, ee i caabud, salaaddana u og xuskayga. Cumar wuu ooyey. Hadalkani ma ahayn hadal bashar. Iftiinkii iimaanka ayaa si toosa u galay qalbigiisa, wuxuuna yidhi, ma jiro qof hadalkan iska leh oo ay tahay in wax kale lala caabudo, ee ii geeya Maxamed. Waxa uu aaday gurigii al-Aqram, halkaas oo ay muslimiintu ku dhuumanayeen. Asxaabtii way baqeen markii ay arkeen, laakiin Xamse waxa uu yidhi, haddii uu khayr la yimid waan soo dhowaynaynaa, haddii uu shir la yimidna seeftiisa ayaan ku dilaynaa. Cumar waxa uu si khushuuc leh u yidhi, waxaan u imid inaan rumeeyo Alle, rasuulkiisa, iyo waxa uu xagga Alle kala yimid. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuu takbiirsaday. Muslimiintii oo dhammina way la takbiirsadeen, ilaa buurihii Maka ay wada gariireen. Islaamiddiisu waxay ahayd guul weyn. Maalintaas muslimiintii waxay ka soo wada baxeen dhuumashadii. Cumar ayaa hor kacayay iyagoo 2 saf ah, waxayna si fagaaraa ugu tukadeen Kacbada agteeda. Maalintaas ayuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu u bixiyey magaca Al-Faaruuq. Islaamitaankii Cumar ma ahayn oo keliya guul, balse waxay ahayd bilowga cutub cusub oo dacwada Islaamka ah. Waxa uu awooddiisii iyo geesnimadiisii u adeegsaday difaacidda diinta. Hijradiisa waxay ahayd mid ka duwan hijrada asxaabta kale. Isaga ma dhuuman. Waxa uu si fagaaraa ugu dhawaafay Kacbada, wuxuuna ku dhawaaqay inuu u haajirayo Madiina, isagoo cadowgii Quraysh ku wargeliyey, cidna kuma dhiiran inay hor istaagto. Markii Madiina la tegay, Cumar waxa uu noqday arday daacad u ah macallinkiisii Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuxuuna ahaa harkii rasuulka. Waxa uu bartay diinta, waxuuna noqday mid ka mid ah saxaabadii ugu cilmiga badnaa uguna fahamka fiicnaa. Inkastoo uu ahaa nin adag oo haybad leh, Cumar waxa uu lahaa qalbi jilicsan oo alla ka cabsi badan, wuxuuna ahaa mid aad u ooya marka uu maqlo aayadaha Qur'aanka ah, wuxuuna ahaa tusaalaha ugu sarreeya ee is-hoosaysiinta. Waxa uu xidhan jiray dhar iska caadi ah, waxa uu cuni jiray cunto iska caadi ah sida dadka masaakiinta oo kale. Sheekooyinkiisa cadaaladda iyo daryeelka dadka waa kuwo aan la soo koobi karin. Waxa uu ahaa hogaamiyihii bilaabay kormeerka habeenkii si uu u ogaado xaaladda dadkiisa. Habeennada ka mid ah waxa uu maqlay haweeney carruurteeda ay gaajo la ooyayaan, isla markiiba waxa uu u orday baytulmaalkii, wuxuuna dhabarkiisa ku soo qaaday jawaan bur ah iyo subag. Markii uu addoonkiisii uu ku yidhi, aniga ayaa kaa qaadayana, waxa uu ku yidhi, ma adiga ayaa maalinta qiyaame iga qaadaya culayskayga. Isaga ayaa u kariyey cuntadii, wuuna la fadhiistay ilaa carruurtii ay ka dhargeen oo ay farxad la seexdeen. Wuxuuna ahaa hogaamiye dareensan mas'uuliyadda culus ee saaran. Wuxuuna odhan jiray, wallaahi haddii ay laxdu ku lunto webiga Furaad agtiisa, waxaa ka baqayaa in Alle uu i weydiiyo maalinta qiyaame, maxaad waddada u hagaajin weyday Cumarow? Markii Abuubakar uu geeriyooday, waxa uu khilaafada uga dardaarmay ninkii uu ku kalsoonaa inuu ummaddan sii wadi karo. Cumar markii hore uu ka cagajiiday mas'uuliyaddan culus. Khudbaddii ugu horraysayna wuxuu Alle ka baryey inuu ka caawiyo adkaantiisa. Wuxuuna yidhi, Allahayow, aniga waan adkahay ee i jilci, waxaan ahay baqeel ee deeqsi iga dhig, waan tabar yarahay ee i xooji. Khilaafadiisii 10 sano ahayd waxay noqotay xilligii dahabiga ahaa ee taariikhda Islaamka. Waxay ahayd xilli ay isku darsameen furashooyin waaweyn iyo maamul wanaag aan horey loo arag. Xilligii Cumar, Islaamku waxa uu gaaray labadii quwadood ee adduunka ugu waaweynaa, Imbaradoriyaddii Roomaanka iyo Imbaradoriyaddii Birshiya. Dagaalo taariikhi ah sidii Yarmuug iyo Qaadisiya kadib, waxaa si buuxda u burburtay awooddii Birshiya, waxaana gacanta muslimiinta soo galay dhulalka Shaam, Ciraaq, Masar iyo Faris.
laakiin dhacdadii ugu weyneed waxay ahayd furashadii magaalada barakaysan ee Qudus kadib go'doomin. Madaxdii kaniisadaha waxay sheegeen inaysan magaalada ku wareejinayn ilaa uu u imaado khaliifkii muslimiinta laftiisa. Cumar waxa uu Madiine ka soo safray isagoo uu la socdo hal addoon oo keliya, waxayna wateen hal awr oo ay isku bedbedelayeen. Markii Qudus u soo dhowaadeen, waxaa timid samankii addoonka. Cumar waxa uu ka soo degay awrkii, wuxuuna hoggaanka u qabtay addoonkiisii oo fuushan. Taliyayaashii ciidanka ayaa ku yidhi, maxay dadka ku odhanayaan? Laakiin Cumar waxa uu ku yidhi hadalkiisii caanka ahaa, wuxuuna yidhi, waxaan ahayn qoom uu Alle ku sharfay islaamka. Mar kastoo aan sharaf ka doonno waxaan islaam ahayn, Alle wuuna dulaynayaa. Waxa uu magaalada galay isagoo lugaynaya, wuxuuna qoray heshiiskii caanka ahaa ee al-Uxdatul Cumariya, kaasoo ammaan iyo nabadgelyo siinayay dadka magaalada, kaniisadahooda iyo hantidooda. Markii la gaaray wakhtigii salaadda, Cumar waxa uu diiday inuu ku tukado gudaha kaniisadda, isagoo ka baqaya in muslimiinta ka dambeeya ku candacoodaan oo ay masaajid ka dhigtaan. Cumar waxa uu ahaa maamulo aqli badan. Waxa uu aasaasay hay-adihii ugu horreeyey ee dowladda Islaamka. Waxa uu sameeyey diiwaan. Waxa uu dhisay magaalooyin cusub sida Basra iyo Kuufa. Waxa uu bilaabay taariikhdii hijriga. Waxa uu aasaasay nidaamka garsoorka ee gobollada. Waxa uu ahaa hoggaamiye aan seexan si ay dadkiisa u seexdaan. Waxa uu mar walba Alle ka baryi jiray inuu ku arsaaqo shahiidnimo, uuna ku dhinto magaaladii rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ducadiisiina waa la aqbalay. Subax Arbaco ah, isagoo dadka tujinaya salaadda subax, ayaa waxaa mindi sumaysan dhowr jeer caloosha kaga dhuftay nin Beershiyaan ah oo addoon ahaa, laguna magacaabi jiray Abulu'ul al-Majuusi. Markii la qabtayna wuu isdilay. Cumar wuu dhaawacmay, wuxuuna yidhi, yaa i dilay? Markii loo sheegay, waxa uu yidhi, alxamdulillaah inuusan ahayn mid Alle u sujuuday oo maalintii qiyaame igula doodin. Wuxuuna dardaarmay in khilaafada looga tashado 6 nin oo ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyey. Dardaarankiisii ugu dambeeyeyna waxa uu ahaa in wiilkiisii Cabdulaahi uu u diro Caysho Allaha ka raali noqdee, si uu ugu idin qaato in lagu ag-aaso labadiisii saaxiib agtooda, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, iyo Abuubakar. Cayshana way oggolaatay, waxayna tiri, naftayda ayaan ka hormarin lahaa, laakiin maanta isaga ayaan ka hormarinayaa. Sidaas ayayna ruuxdii weyneed ugu laabatay rabbigeeda, isagoo ku shahiiday mixraabkii rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Cumar ibnu Khadaab waxa uu ahaa mucjiso ka mid ah mucjisaadkii nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Islaamiddiisa waxay ahayd guul, hijradiisana waxay ahayd furasho, khilaafadiisana waxay ahayd naxariis. Waxa uu ahaa Al-Faaruuq, kii ku kala saaray xaqa iyo baadilka, ficilkiisa, hadalkiisa iyo cadaaladdiisa. Waxa uu ahaa hoggaamiye isku darsaday awoodda libaaxa iyo qalbiga jilicsan ee ilmaha agoonka ah. Waxa uu ka tegey dhaxal aan weligiis duugoobayn, dhaxal ku dhisan Alla ka cabsi, cadaalad iyo mas'uuliyad. Fadlan daawade, fikirkaaga ku aadan qisada nagula wadaag qaybta kommentiga. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir oo subscribe saar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe, siina sharigare si ay u gaaraan saaxiibo badan oo adigoo kala ah oo qisooyinka jecel. Mahadsanidin.